هل بوجود كان تقصنا أو قبل من بلاديس هل بوجود حتى هذا جامعة هذا حق الآخرين طبيب وآخرين ومهمة كيسة سير كمان ده إنك هذه مهمة ده يقول لها حتى الكوميونيكيشن كده محلي كده ويقول هو waxay waxaas ku leeyihiin hadraawi baa aad uga hadlay maansidiisii sirta nolosha muhiimadda qalinka iyo quraanka uu leeyahay waraaliin fara badan oo booba iyo maxamed rashiid ka hadlay inay ku jirtay waxaa jiray eragii weynaa ee allah u naxariistay wiil cabdisinimo wixii la qoraa qoro mahareen muxuu hadal qiimo leeyahay macantii oo taasoo hadal weyn runtii kana hadlaysa qofku inay muhiimad tahay quraanka iyo xaqiiqo sheego iyaduna waxaa jirta cusub oo iyaduna aan ku jirin oo sheekooyinka ku dalbanaa kamid ah waxaa jirta nin reerkiisa oo qaarwala ahaaba qaarkii iyo buuxo marka ninkan reerkiisa yacni baa yacni magaciisa markuu jaadkii geeyo ayuu de maalinta jaadka buuxo ku yaraa daba qabsi u ah baalkii daba isku jiray markaasaa nin odayo reer buuxo halkii taagan baa arkaya ninkii yacni intaa lahayo markaasuu tugtugana walaaciyo المردف سياسي عروق ممكن توعى يعني لما كانوا شوية صغيرة والله اللي كنتوا قرنا يا السيسي أو عروق ممكن توعى حبوا ممكن لما أنت تنبه أيها الناس الأخير غير مردف لقاعته صغيرة وماشي خد بعض بلاها هالشيء وكنت بقول له نيجي بقول هذا ما كان في سحرية ولا يعني لو مردف دلول بريطانيا ممكن ما كان في سلاح يعني ما كان قرنا عليه بس كان فرح بدل اللي بيسووا لما دام بدأ شاف كل ما في أبي يسوي يعني لما رجع سوق كرتين يهيج في شرطه ما صار وارا ولا ما كتب ما صار يلا ممكن أنا سمع صار العرنا الشيء عشان عدنا الشيء عدنا معه مركز سوق تدخل الباور الناحية ولا يستاجي ولا السوري هذا واحد كوهل الطون حق واحد اللي بيسوي اللي واحد والله يتحمل واحد اللي ما ذكرنا يساعد عرش شيء اليوم يعني يعني ما لا يعني حاجة واحد كمان انت أنا هدراوي السنين waxaan idinsiinayaa sheeko ka dhacday kaalkacyo waxaa jirtay ilaa dhowr iyo sagaashankii waddanka oo dhan satelliteska ayaa ku batay telefishinka oo laga daawan jiray maaragtay meelo fara badan markaa nin reermiyi oo reer kaalkacya soo gelaya maqaaxi kaalkacyo ku taalo markaa satelliteka laga daawanayo CNN ay socoto marka waxa la daawanayaa madaxweyne Bill Clinton marka madaxweynaha ka ahaa Mareykanka ayaa marka ka socda markaas intuu soo istaagay waxa dadii kaliya markaas ay madaxweynaha Mareykanka markaas ay waxa doo ilaa inaan dimaan taadi madaxweynaha Mareykanka oo reer kacay la hadlayo marka waxaan siinayaa أنا تبرئ يا كاتو أدري ما البارتي سير يا وحنا يا نسقط البارتي يا كذا الهول كان اللي يدو كراكتشيو عاو أو كله هذا دتكيتو كراسي بي أنت بحسنتين كراسي دتك تاجي هاي وأي عاو تنسينه هاي عدين الساعة سلاعي الغصن كا وقت غير هذا كاروبان waxaan hambalyeynay marka hore kulankan kow dhalinyarada Hargeysa Readers Club iyadu ka leexatay wadada loogu talagalay cid waliba inay marto maasha siyaasadda dadka lagu mashquuliyo mar haddii marka wax la akhriyayna insha allahu tacaala qoraalkiina uu ku xiga inagu habeenaynu halkan ku kulannay ciddii joogtay oo buugga Jamaal Cali Xuseen baynu ka hadalnay kalkaasay ahayd caawana maasha allah jabaaluu fadhiyaayo mar kale ayaynu hambalyaynaynaayo dadaalka uu sameeyey ilaa nolosha waxbuu ku soo kordhiyayo weliba waxaan hore loo maqal buu ku soo kordhiyey isagana taasaynu ku hambalyaynaynaa عالم كذا القلباتك مقالة كستا أما عاصمة كستا أما مقالة كستا بقولان قولي أقول إسلام مصرك أيا كفران وايو تذكر القلباتكو الكلام بقى هيستو وقفي كل ديو وحوالي بقى يجيو يكوي ديو marka inta badan waa
rumaysan yahay qofku mar haddii dareenku baktiyo wuxuu u baahan yahay xaqiiqooyinka jira wax ka jeediya yani xanuunka jira iyo culayska jira iyo xaqiiqooyinka jira aan fiicnayn cid ka jeedisa ayuu u baahan yahay de waa hibo noloshu waa hibo cid waliba nolosha waxay ku darsanayso waxaa xukuma hibadeeda jamaal hibadiisa koowaad ama hibooyinkiisa waxaa ka mid ah baabkaa isaga ah ma aha un qosol haddaa maqashaan ilaa qosol ma aha mid walba xikmaddaa ku jirta mid walba ujeeday ku soo baxday mid walba waxbaa laga gutayaa oo waxbaa laga dhaxlaya waxbaa laga reebaya aan dhowr qodobo qosola ana ku darsado caawa qosolka waxaa la yidhi wadaadka waxaa lagu yaqaanaa had iyo goor kutub buu iska sitaayo waxaa lagu yaqaanaa waa hilib cun xoolana isagu ma laha oo soomaalidu waxay tiri saddex baa jira qof hula-aan seexda hula-aan yani aad isaga waxba huwanay seexda iyo qof isagaan hur lahayn dagaalama iyo qof isagoon hanti lahayn dirga marka waxaa la yidhi qofka aan qof isagaan hanti lahayn dirga waa wadaadka weligii arki maysid wadaad xoolo u xeraysan yihiin kitaabkaasuu sitaayo kitaabkaasuu wax ku cunaa iyo casharka iyo qardhaasa iyo arrimaha lamidka wadaad maalin maalmaha ka mid a iska soconaya kutubtiisii sita ayaa wuxuu soo dhex maray ari fara badan oo meel daaqayo ishiisii waxay ku dhacday waxay aragtaa uun duxdae wan malaa 6 jir oo ciddijiid oo galaalan oo subxaanaka ya cadiim aw wax la midhiba aanay jirin tabeedna reerkii ayuu ku soo baydhay reerkii waabay ku farxeen waxay dhahdeen ilaa baa noo kaa keenay dad baa laga xanuunsanaya oo xoolaha tacalus baa haysee bal iska joog xoolahana loo casharisi qardhaasana loogu qooti dadkan xanuunsanaya kitaabkii buu furo wuxuu yidhi imika barorta orda oo wan galaalan soo qabta tilmaan kale buu side maqashiyo duleedka daaqaysa way yaroo galaalan oo ku jira ayay soo qabteen oo sheekhi baa la soo hormariyey dee ku jiraho aan naf lahayn oo saas u eego wuxuu yidhi axan lagaa dhig bari tuuleedii uu galaalan yahay daawada taasi waa kow islaashaha iyo cabah islaashaha iyo cabah ayaa khamradootay waa sabanadii hore ee sokortu ciliiliga ahayd waxay xusuusatay islaanays yaqaanidoo degan meel aada uga durugsan iyadoo isgoobo aan isxusuusinay ayaa dhaqaaqay waxay tidhi maanta dee khamradda heblaayi baa kaa jebin karto waddaday qaadayo iyadoo kala badaa labadii guri dhexdoodii maraysaa islaanta kudheedii ka hor timi markaasay tidhi intay dhaxday heblaayi adaan kuu socday xaggee ku socota maxaa dhacay waxaan kugu soo kici timay inaad shaahi kariso waxay tidhi baadidoon baan ku jiraaye go-a igaa qaado oo gabadhaydii baa reerka joogtay markaad go-a tusto waxaad tidhaahdaa hooyadaa waxay ku tegi islaantaa shaah ka dhiiti inaad gabadhii markaa kildhi weyn oo kuwii jaantiga ahay waqtigaa la isticmaalayay oo malaa 12 koob qaada ayay dabka u ritay waa ka soo qaadayoo dabeedna koob intaa la eego kuwii leeyahaa lahaa beryaha la isticmaali jiray iyo kildhigii iyo caddayskii bay soo agiigto islaantii 2 kooboo badbadow bay liqdayo markii labadii ku degtay ayay caddayskii haddii ay ka dhigo maaragtay ku hubsatay waa caddaysay kildhigii oo kiina 7 ka cabti waa 9 markay maraysay ayaa ina tigeedho waxay tii kaalay hooyo iga turki marka horena dadka wareerka kama daayo marka dambana tan wax qaado ma lihiin marka
qosolku kuma jiro inay sagaal koob cabtay laakiin waxaa qosolku ku jira inay aaminsan tahay inaanay waxba cabin